xaflad lagu dabaaldegayay maalinta la aasaasay maamulka Puntland ayaa xalay waxa lagu qabtay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. xaflad si heer loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo diin, ganacsato, odayaal dhaqameed, fanaaniin, saxafiyiin, haween, dhalinyaro iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town. xafladani oo daha looga rogaa ayada Qur'aan Kariim ayaa waxaa xigay khudbad dheer uu jeediyay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee magaalada Cape Town Mudane Cabdullaahi Ibraahim Dasar oo ka hadlay taariikhda maamulka Puntland xilligii la aasaasay iyo waliba ilaa hadda waxay marxaladii ay soo mareen. waxaan mahad gaar u celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo sida tayada leh u imaada halkan iyagoo doonaya inay arkaan walaalahooda Puntland xafladda ay soo qabanqaabiyeen ay ugu talagaleen inay ku soo bandhigaan waxqabadkooda iyo waliba sanad guurada 13aad ee Puntland. salaanta wadeed waxaan halkan u soo istaagay inaan caawo aan idin soo gudbiyo taariikhda Puntland bilowgeedii iyadoona gudoomiye ku-xigeenka jaaliyaddu oo idin dhammaystiri doono inta ka harsan. kasoo qaybgalkiinu aad ayaan ugu riyaaqnay. waxaan rajaynaynaa in aan wax badan aan la qaybsanno bulshada Puntland, adinkuna aan la qaybsataan oo aan isla wada qaybsanno maxaa yeelay Puntland waa Soomaaliya mana ahan meel ka baxsan Soomaaliya. macnaha haddii aad aragteen calanka Puntland oo Soomaaliya ka bedelan macna kuma dhisno. calankii way wadanaa, cadaanku ma aan wax bedelayo, waa nabad, greenku waa barwaaqada ka jirta. marka sidaa daraadeed Puntland waa Soomaaliya. sidoo kale waxa uu ka sheekeeyay taariikhda iyo dhulka baaxadda weyn ee ku fadhiya maamulka Puntland. sidoo kale martisharaftii halka ka hadlay waxa kamid ahaa nabadoon Yaasiin isla markaana kamid ah ganacsatada ka soo jeeda reer Puntland ee ku nool magaalada Cape Town iyo waliba Maamul Sareer gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Western Cape Mudane Cabdi Jiido madaxa xisbiga talada haya dalka Koonfur Afrika ee ANC Master Path iyo waliba madaxweynaha hay'adda Soora Isxaaq Usmaan Roble iyo mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan kuwa uu guud ahaanba ku dhaaraaday kafaaloonta maamulka Puntland ayadoo ugu dambeyntii ugu baaqay inuu horseed u noqdo nabad raarinta xalka Soomaaliya. dhalinyarada iskugu qaaya soo duuday oo Puntland ku aftirsata si wanaagsan bay xafladda u soo qaabqaabiyeen. waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkiisa kale sidaan ka sii ballaaran inaan la kulanno. Puntland waxaa weeye waa Soomaali, Soomaalina laba ma aha, Soomaali waa. ugu dambeyntii xogayaha guud ee jaaliyadda Puntland ee gobolka Western Cape ahna qabanqaabiye xafladan Hodan Cali Gurey oo mahad celisay bulshadii ka soo qayb gashay xafladan iyo guud ahaanba marti sharaftii halkaasi timid. ummadda reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leenahay happy birthday Puntland. Soomaaliya ha israacdo, midnimo ballaaran, qaran aynu ku faraxno. waad mahadsantihiin. ugu dambeyntii xafladan ayaa ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya iyadoo dadweynaha ka soo qayb galeen aad u faraxsanaayeen. Cabdillaahi Qorshe, Royal TV, Cape Town, Koonfur Afrika.